السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabnaa inaan isdul istaagno dabaylaha iyo roobabka iyo fatahaadaha aadka u xoogan ee mantiqada khaliijka aan soo marin muddo 100 sano ah. runtii waxa ka dhacay saltanada Cumaan, waxa ka dhacay Imaaraadka Carabta, waa wax aan soo marin muddo 100 sano ah biyuhu in ay meelo badan galeen. laakiin sababta ugu weyn ee mowduucan aan u sameeyay waa arin isdul istaag ah maanta nasiib xumo aqliyada dad badan oo muslimiin ah in ay tahay macnaha mid laga naxo. macnaha arkada dad badan oo muslimiin oo ku tilmaamaya ciqaab rabbaani Imaaraadka inuu ku soo rogay. mowqifka soo Imaaraadka ka haysato wax walba ka haysato macnaha kuma banaynaysa inaad doqonnimo samayso. yani maanta dadka muslimiinta nasiib xumo dad badan oo muslimiin ah waxa jira mar mowduucan ka hadalnay oo ahaa samaynta macnaha muslimka doqonka muslimka wax walba iska rumaynayo qofka muslimka ee la siri karo. yani waxaan wakaalada naasa ayaa samaysay. waxaa jira wixii aniga internetka aan ku jiray igu yaabka badnaan arko kuwa macnaha malaaxida mulxidiin ilaahi aan rumaysnayn ayaa waxay sameeyeen bog ay leeyihiin maanta aqliyada muslimiinta aan fiirinayna. bog waxay sameeyeen aanan jirin kadibna qisooyin ayay alifeen. macnaha wakaalada naasa ayaa ogaatay jannada sidaas inay tahay. ila sawira dad badan oo muslimiin ah kumanaan mar sii sheer garaynayo Allahu akbar naasa waxay qirtay janno inay jirto. macnaha markaad fiiriso qofka muslim macnaha dad badan oo muslimiin ah maanta markaad fiiriso ma ahan muslimka uu rasuulka dhisayo al-mu'minu kaysun fatin. macnaha qofka muslimka ah mid aqli leh ilaahay aqli siiyay aan la siri karin. maanta qofka muslimka waa dadka ugu badan ee ka baqo isha, dadka ugu badan ee ka baqo shacwadada iyo shayaatiinta iyo jinni ka baqo, waa dadka ugu badan ee ka baqo. yani aad isleedahay macnaha jinniga iyo shayaatiinta balayda sida uga baqaan yani ilaahigi waxna dilo macnaha waxna dhiba waxna anfaco. yani kaanu inay rumaysaneen oo kala isleedahay shaka ayaad ka gaaraysaa. mowduucan ka hadlaynay oo runtii wax lagu qosla fadeexad weyna wax rusheeyaasha lagu magacaabo anaga dalkana ka jira. يعني شيء وحاول يرنتي موجنايو عقليات قفك مسلم كمان تماشي اي جارتي عذو قاعد حتى خراف. يعني إثيوبيان ما أنت إلا قاعد داعين كرم ضد بدنا مسلمين عذو قاعد اللي قاعد داعين هاي. يعني إنه كو إلى إنه معناه نبض إلالية هاي شيء وحاول يرنتي عقلك أنا جري كرين موضوعا وانو إيمان دونا ونسدول إساقة دونا سماينتا معناها مسلم ضغنا قفنا في هدو أركو معناه ولا مجد قف كان بها إلهي أودي سأرك معناه أو أرك أود وأركتين ضد يوجا معناها نوع يعني حتى كون مقالة سماي وحجر عجيبة مقالة ضد أنيهين أي نافقة قفسي يعني سوء نافقة كدبنا معناه شيء كان أموجنا يأود إلهي الله أود إلهي أرك ريء وكسورين هي مذب معناها وحي مذب يرسدها سكلا إن لضع ومحمد الله oo kun wax ku yiri sawran yihiin geed si Allah ilaahay awoodiisa arka. macnaha rabbul aalamiin ka kownkan abuuray balaayiintaas macnaha majaraad ay ku leeyihiin galaxy kule yani awoodiisa intaas la egtahay ayaa ri wax u yara muuqda macnaha Allah inay tahay wuxuu u arkaa macnaha awoodda ilaahay inay tahay shay macnaha awoodda ilaahay muujinayo. macnaha waliga ma arkaysa asagoo leh إلهي معناها كذا أنا مسلم كضقن معناه نولهان بني آدم كسيدان أفكر يا عقل قاله عجيب إلهي سمي أود بدن أصقله ما أركيس أصقله كون كان نظام يعني بلايين تناله يكون المدول بإلهي أي قوتناي اسمه ديناي وحارك معناه أي لوك الجبان الله إلهي أود بدنا الله إلهي أود دي سأرك وحارك الري معناها وح مذهب صدان شقني كسورين هاي ولايهي إلهي أود بدنا شيء يحاول أنت لغو قصله شيء يحاول أنت مسخرة موجناية. أوكي موضوعنا أنا يردو المرنا تفاصيل شيء وحيابها نانو إيمان دونا إمارات كسيدان أركيني أما سيقو دهانت ودمada خليجك وحكا دعي فتهادو يالروباب يالضبيلة مدة 100 سنة أنا صامرين. يعني أنا أقول نقود داي قدر أيان كالات طبعا ونقود داي وحا أركيني معناها ضرورة مدو وسلاده هاي يعني عبسي ولا مركز أركت ضرورة الروب آد وبدن أياد داي خساران وحا قدرنا سلطنة عمان عرور بدن أو قارهان بس إسكول صارنا أيا كل انتهي إمارات كان إلى دور قف أيا كل متى ذلك قدر انت أوجهاي هل تختار سوري أها كل انتهي الصقة يقويس كيسوجو كونفورتها قدر معناها مال الحدود كسعودي أنا أقول فين لقوا مقعابة سيلين لقوا مقعابة
ayay asagoo ku dabaalanaya dabcan roobka markuu soo da-ay aragtidu ay yaraatay dabaylaha xoogan baddaa qaaday allah yarxamu allah u naxariisa intaa arkayay dakhtarkaas ayaa dhintay runtii imaaraadka ugu darnaa oo ahaa yani sida hadda noo muuqato muuqaalkan magaalooyin badan ayaa ilay oo yani muuqaalo kala duwan oo ku aadan imaaraadka yani xitaa geeda yani waxaa ugu daran markaad dabaysha codkeeda maqasho waxyaaba aad maqasho yani hadda arag dabaylo aad u xoogan ayay ahaayeen waana arrinka keenay dadka qaar sida hadda qofkan minankan ridwaan lagu magacaabo subxaan allah yumhil walaa yuhmil garoonka diyaaradaha dubai ku leeyahay sida muuqato dabcan waa run saanu garoonka diyaaradaha dubai caanka ah sidoo kale warbixin ajnabi oo ka hadlayso years worth of rain caused major flash flooding in Dubai. Roads turned into rivers and water rushed into homes and businesses. Nearly 4 inches of rain fell in just 12 hours yesterday. That's around what Dubai measures in an entire year. That's according to United Nations data. Rain fell so wuxuu ah roob aad u xogan micnaha arrinku wuxuu gaaray in Dr. Cisaam Xiji Masri ah oo ku nool imaaraadka ku nool cafwan mareykanka ku nool kana mid ah khubarada sare ee wakaalada NASA ee mareykanka Dr. Cisaam Xiji waa khabiir waa yani ustaad caalim raadinta biyaha iyo ku noolaanshaha meerayaasha kale in mareykanka yani markabka markuu u diray ama baaritaanadii lagu sameynayo meeraha mariikh aan dhahno in biyo uu lahaa in lagu noolaan karay kaalin ayuu ku lahaa Cisaam Xiji markuu arkay in yani طبعا وانا nin muslim ma sha Allah ah oo ma ahan yani ama mulxid maan waa qof muslim oo mujtamaciisa muslimka kamid ah macnaha wuxuu yiri waa arrin wuxuu yiri aniga ka qof baare ah macnaha ka qof ka baaxid fi majaal al-kawarith at-tabi'iyya ka khabiir ku takhasusay macnaha hawshiisu ay tahay arrimahan oo kale roobabka dabaylaha waxaan dhaco waxa ka dhacay macnaha imaaraadka ma ahan ayuu ku leeyahay dadka qaar macnaha u maleynayaan ciqaab samaawi macnaha ilaahay uu ciqaabay imaaraadka macnaha waa arrin sidaan sheegnay muddo 100 sano mar dhaco runtii markii laga soo tago yani dadka inay kuwa macnaha waa ciqaab rabaani ama waxaas markii laga soo tago yani arrin yar waxa jira oo fiirsasho leh ani hadaan mas'uul imaaraati ahaan isweydiin lahaa maanta macnaha isha ay ku arkaan carabta xitaa ma dhahay kale shucuubta carabta kale ma dhahay macnaha isha ay ku fiirinayaan shucuub badan oo muslimiin ah maanta Pakistan hadaad soo qabato qof Iiraani ah muslim sunni ama yani aad soo qabato Yemeni aad soo qabato Afghani aad soo qabato Turki aad soo qabato ku nool Jazaa'ir aad soo qabato muslim ku nool Malawi runtii macnaha isha ay ku fiirinayaan imaaraadka carabta waa mid cabsile macnaha sida ay u arkaan maanta imaaraadka carabta sidii macnaha inay dawlad muslima ahayn inayba ahaynba dal muslima iyadoo طبعا nasiib xumo sidoo kale markale macnaha mowqifta imaaraadka warbaahinteeda hadda dagaalka Gaza kale shirqoolada balaayada ku aadan iyadoo la fiirinayo yani wuxuu gaaray arrinku in waxa kaliya ka hor imaanaya Twitterka markaad furto dadku ay leeyihiin ciqaab rabaana imaaraadka ku soo degtay arrinkuna uu gaaray in khabiirkan NASA u dhaho arrinku sidaad u maleynaysaan ma ahan macnaha ustaad Dr. Cisaam Xiji sidaad u maleynaysaan macnaha waa arrin u fiirsasho leh in maanta heerkaas muslimiin ay gaareen ayadoo la fiirinayo nasiib xumo xaaladda imaaraadka uu sameynayo yani maanta shay yar imaaraadka hadduu ka dhaco yani dadku waxay ku leeyihiin waa ciqaab rabbaani okay markaan ka soo tagno macnaha aragtida guud imaaraadka macnaha aragtida guud ee arrinkan ku aadan ama aragtida guud ee dadka muslimiin badan ay ku fiirinayaan imaaraadka carabta aanu imaano yani arrinka khatarta ugu khatarsan in waxyaabaha noocan oo kale dadku ay ku tilmaamaan macnaha ciqaab rabbaani ah arrinkan yani khatarta ugu daran ee ka dhalanaysa ma taqaanaan khatarta ugu daran ee ka dhalanaysa waa yani hadda maanta haddii aan aragno qof aan dhahno muslim ah ama qof nooc u ahaadaba ayaa ku qancay macnaha sheegan inuu ciqaabiya ilaahay ayaa ka argoosanaya ilaahay ayaa sanaan sameyn kadibna wuu arkay okay dhinaca kale wuxuu fiiriyay Suudaan Suuriya Falastiiniinta waxay la kulmayaan annaga dalkeena xaaladda aan la kulmayno kadibna wuxuu fiiriyay Denmark iyo Sweden ayuu fiiriyay
kadibna wuxuu arkay macnaha xaaladooda sida ay tahay Scandinavian si guud ahaan wadamada ugu degan oo saana ku mashruuc arif ايش kan ah يعني qof kasta wuxuu isleeyahay anaga yani waxaan nahay inuu isdhaal laga yaaba kuwan macnaha ilaahay ayaa u xanaaqay Suudaaniyiinta Soomaalida ilaahay ayaa u xanaaqay Suuriyaanka ilaahay ayaa u xanaaqay kuwaasna macnaha Scandinavian kaasna waa la jecel yahay inuu dhaho waxba ma ayna sameeynin macnaha anaga ilaahay wuu ciqaabaya macnaha uu dhaho qofku laakiin markaad fiiriso nidaamka ilaahay koonkan uu maamulo يعني سنة الله الذين معناه سنة الله في الكون عندنا ما أركيسد ولن تجد واحد من القرآن قال ولن تجد لسنة الله تبديلا أو تحويلا معناه قابك إلى كون كان أمام الاسم بدليسة ما أنت لبقف مد أقوم الحدسن إلهي الرسول أنا نقولين ينك أقول تغوض بدن هدي أتبدأ جيسة دون بدأ برتن كذا أتكتورته كيد باشا يقنا بدبادي ماشي أهاتا أما وبيها أهاتا أما بركة أهاتا معناها كيد باشا يقانا بدباداي صوبتو سننكاس إلهي دادك وأركان معناها دادك ويقوضا سميهين هذا إنا دبال براتو كمحر معناها المسلم تا إنا دقالتا كمحرنا معناها الروابك أبارها دقالدا بما كسبت أيدي الناس حتى أراه حاجة وحا أمالينا يا حديث صح حديث إيسها والشر ليس إليه معناها الشرطة لنع إلهي ما أهن يعني أصلا وحيابا قالتها الرلوية قاني محي أهيد أما حلقة حتى شيء حنين دهان إن إلهي النسبيان وحي حنين دهان إلهي يا سببه وحي وناقصنا أيقا إسر النسبيان معناها ما أنت عقلية ضد المسلمين مركات فيرسة يعني وحللا معناها فلسفة سنة كسعدان وكاله يعني وحكالو كسي داران مركا إنت أصلقا صوتكو سحرك شعوذة كبقيتانك wax walba معناها dad waxa jiro habeenkii aan talaabo qaadi karin jinni ayaan ka baqaya waliba dumarka ugu badan dumar waxa jira suuliga aan gali karin Allah yakramakum macnaha xamaamka aan gali karin habeenkii maxaa jinni ayaan ka baqana jinni ayaa dharbaaxi mushacwadiintaas aan markaa hadalnayna sidoo kale lagu magacaabo rusheeyaasha labada nooc kale ee waxyaabahaas wallahi aad salaadi macnaha waxyaabaha hinduuska ay sameeyaan بركة يعني فوسها دبيه لقى بوحية تمر مساكين قون آن لهين وعي آن لهين لقوا بالبلاية شيء وحاوي تاريخ المسلمين تاعنا صامرين أما جيني بان سي أونلاين أقرب حنايا معناه واتيان أركي نقف مت رشية لقوا مقعابة مت كمده مت كيرايا ومالين وها قف دمره صومالي هوي صومالي كوسكن سويدن أيو سي أونلاين جيني أقرب حنايا يعني قال هذا ماشي يا عيسى جيني حكومة محمد صومالي يعني سفير بالله صدري عمل يعني السودان هذا محمد صومالي ماشي زوجته جيني وقل يعني حتى waxa ka sii daran macna jini inuu dadka gali karo in marka laga soo tago waxa ka sii daran qofkan yani aaw iimaankaadi macna helaya aad rumaysantay aaw waa maxaad ka baqaysaa baan waxa akhrinay qiso nin aan u maleynay macna taabic waliba taabiciinti ma ahayn wuxuu ahaa nin yani saalixiinta muslimiinta kamid waqti waliba xataa aan aad u fogeyn libaax ayaa ka hor imaaday libaax yani wuxuu leeyahay waxaan ka baqaya ilaahay inuu arka qalbigayga macnaha cabsi asaga aan ahayn inay ku jirto macnaha libaaxan in libaax ku hortaagno sidaas in aan ka baqayo ilaahay inuu wax qaban ka baqayo ayuu ku leeyahay marka kama baqayo in libaax hadduu cuno hadii aan iska celin karin iska caadi wax iska bedelaya ma lahan macnaha wuxuu wax iska kay bedelaya ma lahan caadi ayaan ahaan laakiin muslimka macnaha rusheeyaasha ay soo saarayaan muslimka آمنسن خرافات ودن آمنسن فوليجا سحر يإل كبقى وحول باحون كبقى يعني إنه هذا قفك أقول فليسن وحول بكبقاي وحكى الله قصير درن هذانا يهود وحول بيقانان مرايكان كوحول بيقانان يعني أدون كان وح كصع ذوي أجيين معناه سياسي جاس مسكين مسكين ما كلنا محاولة جدا عقل أهان هوسية galbeedka iyo quwadahaas ka aaminsan shay macna aanan taariikhda soo marin oo la arag taariikhda aan soo marin oo la arag oo hadii qof galbeed uu wax u ballan qaado u maleynaya khalaas adduunka wax kasta in iskugu kaagageen mujtamacaas ayuu un kamid yahay aaminsan macna jinniga iyo shayaatiinta iyo shacwadada ka baqaaya iyo aaminsan yani markale aaminsan maraykanka inuu wax kasta ogyahay macna siyaasigaas ergeyga loo soo dirayo
wuxuu aaminsan yahay adduunkan yuhuud inay maamulaan, maraykan iyo maasoniyad inay maamulaan, adika waxaad tahay aadan la arag macnaha Soomaali halkaas ku nool ayaa tahay, yani wixii laguu sheegaa fully sababta waxaad kala ogtahay ma lahan, waxaad tahay qof noocaan oo kale way kaa caqli badan yihiin, waxay kugu sameeyaan arag. kadibna aan aragno jiil macnaha ciidamadaas lacagta lagu siinayo inay adiga waddankaada macnaha waxaas ka sameeyaan ku tilmaama ciidanka nabad ilaalinta. يعني أنا مسلمين كمالي تاريخ ذا بني آدم كما صار معنا حالة دقون ماذا ما صار مرين حالة هذا دقون ماذا معنا عيدا ماذا سما قلبيتها هذا لما أفريقيا كسر ساكر يستيا هذا معنا إن لو قلت لما عيدا نبض إلى تاريخ ذا بني آدم كما صار مرين وأنا شيء مرجالي معنا إن أردت كنت الماما عيدا نبض إلى شيء وحاول أنت عجيبة إن معنا ما أنت حالة ضد كمسلمين تا يعني أي جارين يعني maraykanka xataa markii inta badan gobolada koonfureed maraykanka Florida oo kale waatii aan arkaynay macnaha fatahaado badan harikeeno badan ayaa ka dhaco yani dadka muslimka ah maanta aan xaaladaas cajziga dareemayo waa ciqaab rabbaani ah yani bal xitaa mararka qaarkood ee nagu qoslaanay dhahaan adinka wixii idin ku dhacaa waa ibtilaa iyo waa la idin imtixaanaya annaga wixii nagu dhacaana macnaha waa ciqaab rabbaani ah yani hada maanta hadii dagaaladan macna مثلا sida Suudaan oo kale dal Yurub oo ka dhici lahaa ma talo dad badan muslimiin maxay dhihi lahaayeen waxaan ilaa macna ciqaab rabbaani arrinkuna sidaas ma ahan yani adi markuu ku hogaaminay siyaasad noocaas oo kale raqiis ah karaama aan lahayn lugihiisa fiirinayo noloshiisa oo inay cid kale inuu ku kalsoon yahay dhulka Soomaaliyeed meel walba ka joogo wax isdhaama ma lahan macna qof noocaas oo kale markuu hormuud ku yahay baarlamaanadooda markay kulmayaan arag waqooyi haadan ama koonfur ama bari haadan ama meel ay ahaato markay kulmayaan arag yani xaaladda ku hadlayaan arag waxay macna aqliyadooda arag macna dad noocaas oo kale markay adiga hormuud ay ku yihiin waa maxay natiijadu macnaha isba bedelaysa natiijadu waa mid xun ay noqonaysaa waxay dhahan mudkhalaadka hadii ay sidaas yihiin mukhrajaadkana waa sidaas macnaha waa un isku mid haddii aad maanta cusba abuurto cusba la abuuro waxaa loo jeedaa haddii aad maanta yani galey abuurato ama digir iyo galey ayaa kuu soo bixi macnaha faraawala ma guranaysid iyo maango ma guranaysid camba ma guranaysid wixii aan abuurataa kuu soo bixi anaga marka macnaha dad noocaas oo kale aan u aragno macnaha siyaasi inuu yahay iska soo qaad ku buuxi macnaha qoondada dumarka ku buuxi reehbel waxaa ka dhiman hal qof ee hal la keeno galbeedka gaalada ayaga macnaha qofka waa la soo doortaa laakiin adi reehbel weey macnaha la keeno waa yani waxa la jeedaa mashruuca lagu magacaabo 4.5 ka oo ah bahdilka bini aadamka in يعني شيء وحاول أنت مركل حتى عقلك بني آدم أنا قالي كرين ريهبل وحد لذين إنتاس هذا بقى يقف إسكاك هنا هل كإسلام هو كلية أهل حل وعقل معناه ضد عقل له أو كوي الله سمك يعني هذا سياسيين تمانتا أنت معناه صومالي ما أنت جوجا هذه ميزانك تاريخ ده صارت وهي ده هراك لا يعني كان أبوين جوتا عيدا صدق قفك كوبان معناه ظهر قفك كوبان سرية لو ما آمني لهين لكن ما أنتوا آمنين هي قلبات بقى جرب تاجن كان جرب تاجن مت كان يساعده مت كان كي معناه واتي أنا رجني مت كي وحي رسمية معناه ما يصير أركبه كوسي عرضي ودين هبل أما قوات كلا آذي صوبت أصلا اسكو ما كرسان وحقوق جاي معناه إنه ياي معناه أوهن من بيت العنكبوت marka runtii maanta hadda xitaa baraha bulshada marka la fiiriyo si guud ahaan dadka muslimiinta ah nasiib xumo waa dadka yani mujtamacaadkeena waa kuwa wax ugu liito soo gudbiyo xaaladaas micnaha غريبka yani adan marka la fasiri karin yani runtii markaad u fiirsato qofka dadka muslimiinta ahaa المؤمن كيس فطن المؤمن قد لبمر لقى مغنين رسولك كليه يعني بل حتى هذا مال واتي أنك هذين دراويش إنجليزكا معناه ولا بنا عقل جوذا وحلا بنا سردون كوذا سيدا معناها أجورين إنجليزكا ميل والبيت تجان وحكي إسرائيل قلعوين حضارة شيء وحياه عجيبة تاريخ المسلمين تمركت في رسا
يعني هذا عمرو بن العاص وكلا مصر مركو فرناي داهية العرب وتيلا ديه جري يعني مر سر هدي لو ملاقي هدي فهماي معناها صورناي قياساي سيدي wax noqon doonaan laakiin muslimka maanta siyaasiyiinta gaar ahaan markaan ka hadlayno ergey wuxuu yahay aan la aqoonin jaasuus raqiisa ayaa loo soo diray ergey hebel wuxuu noo ballan qaaday marka allahu almustacaan micna dadkaas siyaasiyiintaas cidda u aragta ama ku kalsoon zaa'id warbaahintooda raqiiska marka lagu daro oo yani bini aadan uu siloon soo saarayo laguhu ay maskaxdu ay lugaha uga taalo yani waa maxay mustaqbalka aad sugaysa ama yani ummadaas wax hor yaala dad noocaas oo kale waxaa kaloo kasii dar maanta nasiib xumo shuyuukhda يعني انت caanka ah ama dadka macnaha sheekh hebelada la yaqaano shuyuukhda mid walba macnaha wuxuu leeyahay wax uu khasaaray macnaha haduu ama siyaasada ka hadlo ama ummadda xaqa u bandhigo yani midkan wuxuu leeyahay xaruntiisa hebel midkan xarun hebel ayuu degan yahay mashaakil uu ku imaado mar raba yani halkaas umuurihiisa waa tamaam yani waxaan sheekh walba wuxuu haystaa macnaha wax uu khasaaray ayuu haystaa oo ah inuu isleeyahay boqortooyo yar ayaa ku dhisan yani masjidkaada maktabadaada weyn kan ama xitaa kuwa rasmiga ah kadibna kaliya waxa uu ka hadlayo iyadoo maanta mixnadan ay taagantay badihii la qaadanayo kan la qaadanayo uu ka hadlayo yani waxyaabo maxaa weysada buriyo waana tii ay dhihi jireen macnaha oraha islaami waxaa jirta ah meel macnaha ribada ay ku faaftay haddii aad zina oga hadasho faqad laqawta oo kale yani hadal waxaad ku hadashay aanan faa'iido lahayn yani waqtigaas waa waqtiga macnaha ribada inaad ka hadashay ahayd laakiin waxaad ka hadashay waxyaabo kale sidii inuu lagu tilmaamay kale macnaha hadal aanan micno lahayn maanta shuyuukhda inta badan mid walba wuxuu haystaa gaarigiisa ugu dambeeyo wataa wuxuu haystaa masjidkiisa ayuu degan yahay yani uu leeyahay xaruntiisa ayuu leeyahay markaskiisa ayuu leeyahay waxyaabaha yani dadka anfacayo weyn ama saamaynta dhabta ah iskuma mashquulinayo waxyaabo mucayana laga hadli yani si khalaas marka runtii yani arrinka ugu keenay mawduucan inaan ka hadlo waa in yani hadda maalan dabaylahan oo kale waxyaabahan lagu tilmaamo ciqaab rabbaani ah lagu tilmaamo kan ayadoo runtii haddii aan raacno yani qofka muslimka bal micna arrinka uu keenay iimaan la-aan uu keenay dadka inay diinta ka baxaan uu keenay markuu arko micna markaad dhahdo yani waxaan waa ciqaab ama galbeedka wax ka dhaca waa ciqaab waxyaabaha qaar annagana mashaakilkaas badan aan lugaha kula jirno micna sida inuu qofka isleeyahay kale haddaba ayaga kaa saxsan ka diin ahaan inuu qofka dhaho kale marka iimaanka iyo islaamnimadu waa caqli waxaan ula jeedaa yani aan sidoo kale kuu soo qado oraah uu yiri isla mawduucan ku saabsan cali cizad begovich madaxweynihii hore ee bosnia herzegovina mufakir ma sha allah kitaabkiisa alislaam bayna asharqi walgarb kitaab micnaha qoro cajiiba jiro magaciisa micna carabi ahaan sidaas yahay wuxuu leeyahay micnaha macquul ma ahan inaad muslim tahay isla waqtigaasna aad caqli ahaan hooseyso micnaha mutakhallif aad tahay cali cizad begovich wuxuu ku leeyahay macquul ma ahan inaad micnaha muslim tahay isla waqtigaasna aad dambayso oo tahay qofkaas mar kale wax walba iska rumaynayo ama khuraafaad iyo shacwada ka baqaayo ama u arka kownkan yani inay ayaga galbeedka uu leeyahay u arko wax kasta lagu shuban karo xuduudkan ingiriis ayaa dhigay aaminsan yani muslimka uu sheegaya sidoo kale cali cizad begovich kaas ma ahan muslimka yani waa insaankaas caqliga badan cajiibka ah allahu almustacaan wallahi markaad xaaladda muslimiinta maanta fiiriso waa mid laga naxo mawduucan intaanu ku egyahay cumar inshaar asalaamu calaykum